دين ما كودك مننا أنا I will say no. Zakaria, were very sensitive question. دين تم كودك أنا معناها مكتة. mana rabo in lagu label gareeyo diinta ka soo horjeeda waxaan ku raacsanahay aniga saaxiibkay marka diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo niman naga aqli badan Mareykan ayaa kala sooceen diinta iyo state there's a reason ay kala sooceen it's not joke man naga aqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin xireen baashan hala kala sooco Bukhari walaalkay wuxuu yiri Kenyan system aniga intaan ka akhriyo Kenyan system I think it's a good system laakiin inaan ka soo kala qaadanayno iyo in kale wuxuu taalaa Soomaalida وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حنركه وحيلا aad aan uga naxay ka mid maalin dhaweed laba nin oo Soomaali oo leeyahay waa professoro magacyadooda taqriiban waan garanayaa iyo wajigooda laakiin la sheego muhiim ah meel bay wada fadhiyaan social media la soo gali mid baa wuxuu leeyahay haddii la isweydiiyo buu shariicada islaamka ma ku dhaqanaa haddaan Soomaalina wuxuu yiri I will say no I will say no waa professor Soomaali ah oo Mareykan wax soo baray waa shariicada ma ku dhaqanaa Soomaaliya ma ku dhaqanaa haddii la yiraahdo anigu waxaan dhihi buu maya midkii ka dambeeyaba dibi dhalo ka dar waa midkii la fadhiyay wuxuu yiri anigu horta saaxiibkay waan ku waafaqsanahay buu hadalkiisaas sababtana wuxuu yiri tanaaba ka sii daran wuxuu yiri Mareykan baa kala saaray buu yiri diinta iyo nolosha Mareykanna waa naga aqoon badan yahay u fiirso saas u hadlaya waa professor waa naga aqoon badan yahay waa naga waaya aragsan yahay waa naga xoog badan yahay maadaama Mareykan uu diintii kala saaray iyo baashi asaga inuu kaga daynaynaa saas daradeed saaxiibkay waan ku waafaqsanahay waxaan sadhihi lahaa buu yiri aan samaysano dastuur aan shariicada dib u geysanaynin kelimadaasi waa kelimo shaydaan waay caamada lagu siraa shariicada waxaan ka hor imaanaynin aynu aan dib u geysanin kuwa professoriintii ay gaala soo tababartay laga soo shaqeeyay ee 40 sano la soo tababaraya Soomaalida aha warkoodu kaas waa maxaa la doonayaa ummadani inay sanka uga tollaato cadaan iyo reer galbeed gumaysi aan danaheeda ka shaqeyneen wixii ay ku xoogaysan lahaydna laga ilaaliyo culimadii baan la weyd Muqdisho ka hadlayso waa in la fadhiday soo nasiib xumo ma aha dhowr iyo 20 sano kadib in Soomaaliya lagu soo celiyo mooshinkii lagu laayay culimada Soomaaliyeed ma taqaana culimadii Soomaaliyeed la toogtay ee aafadan Soomaali haysiya burburkeeduba ka bilaabatay waxa lagu laayay muxuu ah dumar gaala soo dirsatay ayaa waxay keeneen shuruuc la yiraahdo xuquuqda haweenka xeerka qoyska oo diinta Rabbi si toos uga hor imaanaysa maamulkii markaa jiray baa barnaamijkii qaatay dumar baase asal u hayo keenay markuu maamulkii qaatayna wadaadadii maya yiri war diin Rabbi bay ummadani leedahay aqeedadeedana waa islaam arintana shariicada Rabbi kitaabka ka hor imaanaysa yaa inta la qabqabtay abirta laga aslay Soomaali oo dhan oo daawanaysa meeshaana Soomaali loogama horin halkaas la iska raacay 20 iyo dhowr sano kadib oo silic iyo wareer iyo jahwareer umadu ku jirtay ayaa mooshinkii laftiisii maanta loo keenay dadka umada oo la yiri asagoo yare maldahan oo farsamaysan ayaa la yiri aynu qaadano
anu waxaan la yaabay marar badanna waan tilmaamay xoolaha la dhaqdo ariga kaba soo qaad aqli male laakiin ilaahay wuxuu siiyay xogaa dareena ninkii xoolaha raaci jiro ariga raaci jiray baa yaqaan ariga meeshii shalay waraabuhu ku galay oo dawacadu ku gashay oo neefka lagaga reebtay oo wacdaruhu ka dhacay berri markaas ku soo dareeriso kaynta iyada hay'ad madaxa u galiso uu soo didi waxa ma arkin hadoogow dawacana ma arkin waraabana ma arkin jiifaana ma arkin gududana ma arkin arigii waa soo diday waraarigan maxaa didinay hadaa daba marto meesha wax jooga bale raadna male arigu muxuu ka soo diday wacdaradii shalay buu u joogay Soomaaliga calmaaniga aqoonyahanka sheeganaya aqli xumadiisu way keeni weyday war meeshii shalay ummadu ku burburtay oo wacdarahaasi ka raacay ari baaba ka diday kadid waa garan waay waxaase wax marka ummadda taladeeda wareerinay muhiimadu waxay warku waa ila sibqadee maqsuudku waxa weeyaan ummadani inay diinteeda qaadato mujtamaceeda iyo mujtamacaadkeeda iyo dawladaheedaba waa meesha maxakka awa waa meesha awoodeedu iyo quwadeedu ay ku jirto halkaana way meesha la inaga dagaalamayo